حسين عبد أحمد وادبنا مدرر كحرنا حبسي قد حي مقالة الله سعنود دباتوين بدلنا كسو وجهذي انتي وكحرنا حبسي قاسي حسين عبد أحمد وأنا ما أنت كوبوق أن يجدها حبسي مقالة الله سعنود أي قورنتي وحكور بحيي كيس كالله هيستو تليها حبسي قد حي مقالة الله سعنود قاشان لعبد الرزاق نور محمد عيل ترى سقونا الشيءين الله هيستو مقويل يرو كوتشي راي دقمة جنبره ومدة مسلم كان كعص ذين يسوع عويان حسين ومدرر كوتشي راي حبسي قا والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا ملين إلا شفرته ولا ظالم إلا هديته ولا حاجة هي لك الرمين إلا قالتها يا أرحم الراحمين ودي إلهي ما هدى له ما أنت هلكن اسكو كيني عليك محبوس كان هلكن كحلان مدير لير كاسو له يستي مج إن ير أو كوجيري تولد جنبرة سواء نما أروعه taasoo aan gaarsiiyay culimada garaadada madaxda gobolka Sool codsigii aan qoray ee ahaa in laga soo bixiyo magta lagu sheeganayo haddana aan ka faa'iideysanayo saxaafadan qiimaha iyo sharafta leh ee nagu soo booqatay maanta xabsiga saxaanood ilaahay mahada ka gaarsiiyo jecel in walaalkeena halkan ku dhibaataysan muddada dheer halkan ku xirnaa in ummadda islaamka ah gacan u fidiyaan inay ka bixiyaan lacagta lagu sheeganayo ee magta inanka yar ee uu jiiray isla markaasna inanka markuu jiirana asaga gacantiisa ugu qaaday balse cid ka bixisa uu leeyahay halkan aysan deganeen dadkiisii saas darteed waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda inanka gacan laga geysto sidii looga bixin lahaa magta anaguna waxaan ballan qaadaynaa in aan ciidan ahaan aan bixinno wixii karaankeena ah anagoo ugu horeyna qaaranka loo gooniyo maxbuus xuseen cabdi axmed oo ku xiran xabsigan laascaanood ilaahayna waxaan ka baryayaa ummadda islaamka inuu ilaahay garansiiyo maadaama islaamnimadu ay tahay in la iscaawiyo la iskaalmeeyo taasoo adduunya aakhirada qof walba wax u taraysa xuseen cabdi axmed ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay qaabka uu xabsiga ku soo galay isagoona noo sheegay inuu ilmo yar ku jiray wadada u dhaxaysa Garowe iyo Laascaanood kadibna uu geeriyooday ilmahaasi xabsigana la dhigay maalintaasi mana jirin cid ka wada hadashay kiiska loo haysto Xuseen ugu dambeyntiina ummadda muslimka ka codsaday inay ka soo caawiyaan sidii loo bixin lahaa magtaasi loo haysto muddada dheer anigoo ah Xuseen Cabdi Axmed kuna xiran xabsiga gobolka Sool muddo dhan 2 sano taasoo aan la haysto qaan sil baabuur aan ku galay degmada Gambare waxa ga bixiyana aanan haysan يا walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa in laga bixiyo deynta la haysto baan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta xabsiga degmada Laascaanood muddo 2 sano ayaa ku jiray dhibaatooyin fara badan baa igala soo xidhiidhay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa Ashaana Sar Cabd Rasaaq Nuur Maxamed taliya xabsiga gobolka Sool ciiltire ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maadaama hawsha ay fudeediyay oo waxay qabtay misagoo jiray muddo dhan hal bila ugu dambeyntiina Sheekh Saciid Axmed Cadare ayaa baaq u diray dhammaan ummadda muslimka ah isagoona ka codsaday inay soo caawiyaan walaalkooda Xuseen Cabdi Axmed oo muddo dheer ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood kana soo bixiyaan magtaasi loo haysto Xuseen waxaan saaka halkan ka soo gudbinaynaa maxbuuskan ku xidhan muddada 2 sano ah xabsiga magaalada Laascaanood oo magaciisu yahay Xuseen Cabdi Axmed oo loo haysto shil gaari uu waday ku yimi inaan uu jiiray oo yar magaalada Gambare muddo 2 sano ka hor in ninkaasi oo in badan xaaladiisu ay ahayd qayladaan isla markaana ilaa hadda cid u timaada oo hawshiisa wax ka qabata aan jirin waxaanu u sheegaynaa dadka muslimiinta ah arrimaha noocaas oo kale ah shilalka iyo kamayada ku yimaada waxa la rabaa in la isla caawiyo oo in naxariis badan lagu eego dadka muslimiinta ah waxaanu ka codsanaynaa haddaanu nahay culimada in ninka laga caawiyo sidii magta looga bixin lahaa oo mukurbada haysata مدة 2 سنة سمير سعيد بلا
TV-ga caalamiga ee Somali Cable laascaanood.